فارح ما مقليسا سفيعا فارح صاو كان نرى اللي هاو وحنا كان نوصل درسي وانا كنت لقلين بهيد صاو مدة وشيء فارح وحن جوجني سواش وحن جوجني جودي مردية أبو أنا هاي مدة كوكوسيسا dhibaatadeedii ay sheegatay iyo abwaanadii oo ehelkeeda ahaa ay isku walaalka ahaayeen oo iyaka qofkii ay ka cabatay horteed u wajoobayba jawaabta ay bixiyeen ay odhanba qofkan bishaaraha la siiyo oo ilaahay wax u doono ayay ugu jawaabeen bal arrintaa maxaad ka oran lahayd faaraxow اللي مغلى جنان تي في وانكم مغلى صح سعيدو برنامجka su-aashii ka horreysay xisaa jawaabteedii waanu ku soo celinaynaa su-aashaadii ahayd intaan su-aashaadan dambe u soo gelin su-aashii ahayd jawaabteeda barnaamijka cillad baa soo dhex gashay inaan ku soo celinno yaa ila habboon su-aashaadu waxay ahayd ismaaciil waa taageersanayd maxaad uga hadhay dadka iminka taageersanna maxaad ka odhanaysaa taa bay ahayd su-aashaada koowaad anoo ugu soo celinayo dadka jawaabteeda siinaya waxay ahayd ismaaciil waan taageersanaa waa run miisaanka markaan saaray waxaana sidhi markan ma sii taageeri kartid waana qodobaynayaa laakiin dadka taageersani anu ma khasbayo oo malihi ismaaciil yaa la taageerin ismaaciil waxaase loo baahan yahay in miisaanka la saaro oo la idhaahdo ismaaciil danta dalka midnimada dalka horta nin madaxweynuhu hadduu antigrite territoriaalkiisii waxa loogu dhiibay dastuurka hal dhagax ha ahaatee hadduu hal dhagax ka maqan yahay waddanka oo ninkaasi danna ka lehay inuu soo celiyo qorshana uu ugu tala jirin ninkaasi waa madaxweyne fashilmay cadaalad darrada iyo qabyaaladda iyo musuq maasuq iyo waan isu geli doonaa ismaaciil waxaan ka hadhay arrintii khaliishka ka dhacday ee uu qadar xidhiidhka ugu jaray qadaroo sidaad ogtihiin dadka reer jabuutow ma aha inaad danaha dalkiina iyo danta dalkiina aad iska daysiin ood ismaaciil waa ninka yidhi madaxweynaha yidhi kolkii la weydiiyey war arrintii eritrea halkay ku dambaysay annagii khilaafka eritrea naga dhexay wuxuu ismaaciil ku jawaabay sidaad ka tihiin baan ka ahay kolkaa nin sidaad ka tihiin ka ah dantii dalka dadka reer jabuutow yaa la weydiinaya dantii dalka waa su-aal weeye nin caynkaasi muxuu xakumaa bay ka dhigan tahay waxba ma xakumo ismaaciil anigu waan taageersanaa sidaan markaa u arkayey laakiin markii aan dib u egay waxaana sidhi halkani waa halkaad kaga weecanayso waxaana kaga weecday markuu qadar oo eritrea iyo jabuuti dhex gashay oo dumeero gacanta ku haysa oo uu xiliirka u jaray ee uu sacuudiga raacay ee eritrea dib ugu soo noqotay qadar ee uuna dalka u diyaarin dumeero in la difaaco ee 43 nin oo dumeero ku dhintay xoreynteedii waxba laga soo qaadi waayo raggaas waxay ku dhinteen bilaa macni aabbayaasha carruurtoodii ka dhintay hooyayaashu ka dhintay ee dalka iyakoo difaacaya ka dhintay ismaaciil uu xiriyooreeyey oo wuxuu yidhi kuwaas qiimo male ee arrinta sacuudigu ila yimid ayaan raacayaa kursigayga ayayna dan ugu jirtaa inaan xulafada sacuudiga raaco taasoo dumeero ay ka dacwinayso dumeero oo dacwinaysa waxay leedahay dadka reer jabuutow danaha dalkiina inaad warka haysaan weeyin dumeero oo dacwinaysa waxay leedahay dadka reer jabuutow dibadiyo daljoogow dumar ubtani dhegaysto dumeeraa dacwidayoo dalabkuna wuxuu yahay dooglow caalanka kiinyi dushaydani ma saarno dugaaggii dejiyebaa daji igu duldhamayo doofaar qalmuunbay dushaydani ku ruugaan duul diin lahayn baan derisnahay ayaamahan maxaad iiga durugteen soo dumeere maahayn sow deeq ilaahoo dalkan daayimsiiyiyo dariiqii wacnaayee doonyaha adduunyada u kala wada halka ay ka duuraan soo dumeere maahayn dam haddaad tidhaahdeen haddii ay difaacayn idoondooni haynood dabna xidhateen sow daranyadaydiiyo dulligaygu kuma xigo dow maalintay tahay dagaal nimankii diidayn dalka iyo dadkiisana difaaciisa wadi jiray
dhiigga daadin jiray ee cadowyada dullayn jiray diraacyadii ma hoydeen daarta kale ma aadeen dilaal iyo minaan iyo dareen qarannimo aan wadan boqol ma isku soo hadhay dumeeraa dacudayoo daa'im waxay ka tuugtaa inuu diruucu soo baxo dibna uu xoreeyaa ismaaciil cumar waa madaxweynaha nin dalkiisii oo la haysto ciidanka uu qoro u dira waddan kale waddanka soomaaliya oo walaalaheen laakiin adigaa dal lagaa haysta reer soomaaliya waxaa la yidhaha waa ninka dal inaga haystaa seed ciidan noogu soo diraysin waa wax la yaaba kolkaa inuu integrite territoriaalka ilaaliyo ismaaciil taabaa waa waxyaabaha kaga hadhay waxaa kaloon kaga hadhay fu'aad ninka qabashadiisa maaha waxa dhibaatada keenaysa weligii buu baxsan jiray uu dalkan ka caymadi jiray uu ka in askarta dalkan ka baxsatay fu'aad intuuna baxsan maxaa dhacay dadka reer inay arrintan yidhaahdiin war maxaa fu'aad helay se muxuu fu'aad sameeyey oo muxuu fu'aad isku dayay ku xalliyo fu'aad war sargaala waxa xukuma wihiib nin la dhaayo ismaaciil umar adeeru yahay xukuma mister gaala isagoo mishaarkii baa laga gooyey korontadii baa laga gooyey xitaa dowlad militariya waa duf uu ilaahay noo sameeyey uu u fasaxay bini'aadanku si ay isku gartaan sidaan adiga aadu isku garanayno sidaan kuwa kale isku garanayno ayaa loogu talagalay qabiilku inuu ahaado laakiin looguma talagelin in la isku dullaysto la isku guumaysto looguma talagelin gabadhaasi qabyaalad bay sheegatay wasiirkii inuu jawaabahay maxaa ka galay qofkaa cawday ma ninba qof waliba waxa uu qaato qofka kale ma ogo meeshaad ka shaqayso mushkiladda adigu haysato mushkiladiisu isagaa difaaci karaya mushkiladiisu qofku isagaa difaaci karaya anugu waxaan ogahay fan jabuuti ladaa inuula jirin oo uu qarshii laba qaato wax maalin qura ay ku qayilaan kuwa wasiirada sheegaysa ninkii astaanta qaranka sameeyey qarshiile ayaa ku nool maciishatu kalbi waxay ku qayilaan kuwa wasiirada sheegaysa kolkaa fanka kale nool muxuu yahay halkaa haddii aan hal eray ka idhaahdo waxaa soo galaysa aw maasacuriyayaashii iyo wixii oo dhan waxaa soo galaysa wuxuu yidhi maal iyo macaash kama rabo imaanse jilideeda midha curiyayaashuba dhammaan waa ma haystaane midh ka daran haddaan nii marsheen magana lee sheego mucjisada ku ladhan muusiqaad maxabbo heesaysid mu'allifkii qarshiilaba hubaal moosow miskiin maaha macluul maxaa baday haddaan malani weydiiyo maraho gorofa baa laga lisaa caana maandeeqe mooliskoo xumaadaa ka daran maalad weydaaye mahmaah weeye meesheeda taal maanta oo kale kolkaa dadkan gabadha ku shuruuraya ee le wasiir baad la hadashay kuwaas waxaa odhan lahaa war gabadha ninka xolnimo weydiisan iyadii wasiirka isku daaya صح halka intaa baan kaga baxay gabadha weydhantahay farax arrintii annakoo inaan soo xidhnaa doon maaragtay dumeera hadalkayga nagu dheeraaday laakiin su-aasha aan doonaya dumeera dowladdu halka ay ka joogto waan arkaynaa ma hadal hayso danta kale ee dalka ay qayb maqan tahay ee la haya ee lagaga mashquulay dumeera waa maxay dowladdu maxay ku mashquushay waxay ku mashquushay waa waxaan la garanayn ee dadkan idin reer jabuutiba ma u qabaan inuu dalka maqan yahay horta ilaan meeshii dowlad baa jirta haddii saciidow madaxweynihii uu leeyahay dumeera sidaad tiin baan ka ahay dadkii muxuu warka haynayaa dadka ninka kule dumeera sidaad tiin baan ka ahay halkaa hadduu taagan yahay ismaaciil qof war u haya dalka ayaa loo baahan yahay da ha u banneeyo hadduuna dalkii war u haynin muxuu warka hayaa waxba warka maay ka dhigan tahay maaha waxaana ku samayn afkiisu ka yidhi ismaaciil dumeera sidaad tiin baan ka ahay cid kula xisaabtamaysina ma jirto oo nin walba jeebkiisu ilaalsadaa waddankanna waxaa ku dhacay iska daadantayde baa ku dhacday waddankani waddan burburay weeyin waddan nabad baan haysanaa bay idhaahiin dadkani waddankani isagoo nabad haysta ayuu uu degay oo maxaa dumay oo degay
dareenkii iyo damiirkii dadnimada ee qarannimada ayaa degay kolkaa 4 wiil oo bannaanka badhbadh ka tahay ma difaacayaan qarannimada waxaa loo baahan yahay dadkan reer jabuuti dowlad iyo ismaaciil wuxuu yidhi waxyaabaha cajaa'ibka maalintii la wareysanayay wuxuu yidhi ee uu lahaa sidaa tiin baan ka ahay waddanku wuxuu ku horumarayaa buu yidhi fikrado ah ka mucaaradka ka muxaafadka oo fikirka la isku geeyo ayuu waddanku horumarayaa buu yidhi yaa taa kaa helaya qofkii wax fiican dad baa sheega maqan waad waddankii xulaysiin waad xulaysiin ha qofkii maya waddankii waxaa ka lumay waxa la odhanayay notion de citoyennetegii baa ka lumay intereskii baa dul maray qarannimadii qof walba intereskiisii baa yaal haddii waddanka la qaadanayo waxba kaama gelin haddaad u qadaadii celaysid mushkiladda taali waa taa markii ismaaciil qadaadii uma baahno ismaaciil wuxuu sacuudiga ku raacay haddii la weydiin lahaa waddan nool waxaa la weydiin lahaa war maxaad qadar u eriday qadar oo dhulkeenni gacanta ku haysa maxaad ku eriday qadar wad xiriirka ugu jartay dhulkeenna ay gacanta ku haysa jeelasha eritrea ka soo deysay wiilasheenii geesiyaasha ahaa maxaad xiriirka qadar ugu jartay ismaaciil su-aasha hor taalla taa weeyin ee maalinta waddan xora oo waddan dadkiisu uu maamulayo oo waddani uu haysto maalintaas ismaaciil waa la weydiin doonaa hadduuna wadku qaadin haddii kalena khaymul qaran weeyin weligii wuxuu ku daadegi doonaa uu ku dhiman doonaa isagoo khaymul qaran waayo integrity territorialkii buu ku raacay wax geo strategic waxaan la garanayn buu ku bedishay way dhantahay faarax su-aasha kale aan u gudbaynaa sida aad ka jawaabisay maxaa iga galay iyo bulshada jabuuti ahaan jirtay laakiin intan dambe waxaad daraamaysaa dadka reer jabuuti inay jir quwaatan noqdeen ay isku damqanayaan waxa soo baxay dad shiciba oo iyaku danahooga maaragtay maahay danaha walaalkood u damqanaya oo aan xagga dambe amarayn dadka waxaa ka mid a gabadha soo qortayaanka sheekadoore baa dhada waxaa ka jira dacwaddan iminka gabadhan muuna shanala gabadha kale buula qareen nasra iyo nasro iyadna way ku jirtay intoodna haddana cabdiraxmaan barkhadba yaa maarata dadka ka mid ahaa oo sayid u ahaa waxaan doonaynaa dadka ay dareenka ay qabaan annaka ahaan dadka bulshada ay reer jabuuti inta kale maxaad u sheegi karaysaa kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga gabdhaha bacdama ay dadkaas u hadlayaan ay danta guud u hadlayaan annaka maxaa naga waajiba oo nagu waajibo dadka u sheegi waa wax loo baahan yahay mucjisada taalla jabuuti bay ka mid tahay laakiin marar horeba dumarka reer jabuuti hoggaan bay ahaayeen horseed bay ahaayeen oo markay gumaysiga lala dagaalamayey dumar gabdhaa dagaalamayey dumar baa ragga kicinayey maanta gumaysi lama haysto laakiin maanta qabyaalad baa jirta qabyaaladda gumaysigii way ka daran tahay kolkaad u fiirsatid qabyaaladda waxaa la idhaahday gumaysigii way ka daran tahay gumaysiga dadka oo dhan isku mid bay u ahaayeen dad madmadow bay wada ahaayeen la adoonsado in la xajiyo ah laakiin halkan laba nin oo walaal ah oo isku af oo isku diina ayaa kala mudan oo qabyaalad ku kala mudnaaday oo qarankii ku kala yeeshay kolka taa baa ka darantii gumaysiga hablaha maanta waddanka u kacay waxaa nin waliba dantiisuu eegan jiray waa markii u horreysay in aragno dad danta guud u damqanaya dowladaha ilbaxda ah ee waddamada ay jirto waxyaabaha ilbaxu waa bon confernanceka waxaa la idhaahdo oo in maamul wanaagga ha soo qaato maamul wanaaggu musuq maasuquu la dagaalamaa bal dib u raaca taariikhda kolley intiina garanaysay madaxweyne xasan guuleed allahu naxariistee markuu khudbadayna wuxuu odhanayay war xoolaha masaakiinta iska daaya iibaantaa lahaniga qaadee waar musuq maasuqa daaya waar wixiina isku filaysiiye waxaaba odhan jiray xasan guuleed wiilkan maanta madaxweynaha joogay haraamuus degan weligii maaragtay isagoo la xoolihiina isku filaysiiya weligii maka aragteen isagoo la musuq maasuqa daaya weligii ma aragteen waa maya ma yidhaahdo musuq maasuqu markaa isagaa u macallina musuq maasuqa waayo xasan guuleed carruur badan oo wax dhacdana ma lahayn gabdho lacagta loo ururiyo ma lahayn ilaahay baana siin dembi bay kala maqlaayeen laakiin kani maanta joogay dembiga kuwiisaaba ugu filanba intuu kuwa kale ilaaliyay ahayd kuwiisan baa kaga sii daran ee uu dhalay laakiin musuq maasuqu waa wax xun dowladda la dagaalanta hadday dowlad wanaagsan hadday jirto maanta
muuna abaalmarin baa la siin lahaa macalasaf shaqadii baa laga eriyey صح waxay ku weyday shaqadeeda waxay shaqadeeda ku weyday arrin markii dib loo eega la yidhi inay muuna xeer ku joogta la arkay muuno waxay samaysay collectifer in korontada dadka laga naaquso صح maxay samaysay ma aha sharciga ma idinin sidaad farta noogu fiiqaladho wax noogu sheeg wayba arkeenba wixii inay muuna ku joogtay waxaa la yidhi haddii la odhan lahaa muunay been baad sheegtay muuna qaldan tahay maxaa soddonka kun dadka looga naaqusay maxaa dhowrka faran looga naaqusay korontada soo waxay muuna sheegtay wax cad oo runa ma aha marka muuna abaalmarin in la siiyeyna halaheed haddii dowlad dhabi jirto oo dowlad wanaagsan ay jirto laakiin waxay noqotay in la idhaahdo muuna fartaad nagu soo fiiqday shaqadeedii bay weyday shaqadeedii bay weyday korruptionka dadka muuna oo kale ah muuna oo kale dadka la dagaalama xatooyada dowladahan aan joogno wallaahi abaalgud malaayiin lacagaa la siiyaa noloshoodaa isbedin lahayd hadday muuna nin tuuga oo waddan wanaagsan dhacaya ay qaban lahayd laakiin waddankani waa waddan madaxweynuhu ogyahay tuugada nin tuuga weli la qabtay miyaad ogtihiin gabdhaha maanta soo baxay ee geetiyada ah waxaan leehay rag waayey rag bay waayeen baan odhan karnaa maanta 4 hablood oo dhalinyaro ah oo deeqa ciise ugu horeyso nin qura haato deeqa ciise ku daydaa xitaa la waayey oo fuaad oo helaya fuaad maaha askari sameeyey discibliin la'aan fuaad waa askari qabyaalad loo geystay oo lagu dilay reer ma aha reerka u yahay reer baa yidhi annakaa farta lagu fiiqday fuaad reer baa haysta waana ku celcelin doonaa waayo markaad aragtid madaxweynaha taliyaha ciidamada cirka fuaad ka ashka toonayo ka surdoonka ee soo qaaday waxaayoo dhan markaad aragtid ay reer yihiin intaasoo dhani dowlad maahina waa reer fuaadna reer baa haysta laakiin waa nin qaran deeqa waa gabadhii u horreysay ee tidhi anigu tani ka mid noqon maayo kow waa askariyad direystadi muuna waxay tidhi war waa maxay dadkan dhibaatadan umulkhayr sidaasoo qeeliyaysaa nasro sidaas si leeg dhammaantood hablahan waxaan leeyahay rag waayey maansaan nigu taageerayaa meel wada joogtiinna waxaani leenahay ilaahay ha nila jiro maansadaan ku taageeraya waxay tahay noo muuji rabbow baa leedaha noo muuji eebow ilaahay baan baryaynaa keed noo muujini kii dumarka ixtiraami lahaa kii musuq maasuqa gabdhuhu ka diideen ee ka dagaalameen kii la duri lahaa rabbigay noo muuji baan leenahay midaan muruq ku tali noo muuji baanu leenahay waxaan leenahay midigtii iyo bidixduba kala maarmi maayaan mid lamid aha maantana deeqa iyo samiiriyo muna iyo umulkhayr nasre iyo madiina marwooyinka jabuutiye musuq maasuq diidee miidhada ka sara kacay muruqii rag waayee musanaabi keligood miciyada libaax galay magafuhu qaniinaye miciyada libaax galay maansacuuriyayaashii mar hadday midh celinayn malkadoodii madhiyeen mar hadday midh curinayn malkada u horseedayn meeshoodii madhiyeen mahadhiiyo ceebbay dhex mushaaxayaane marwooyinka jabuutow mawlaan codsanayaa mayay caafimaadoo musuq maasuq maydha mandaqadoo u soo diro maareeyo qaranoo mideeyaa dadkiisana noo muuji eebbow maalikul-quduusow salaamulmu'miniyow mawlow macbuudow magacdaada badanee noo sheegay maxamed sala allahu calayhi wasalam inta miin ku ladhan baan miciinkaaga togne noo malay allahayow
madaxweyne daacada masaakiinta dhowro musuq maasuq iyo eex qabyaaladda muquusho muruq aan ku talinoo metelaa dadkiisa noo muuji eebbow maareeyo wacanoo maalkaa dadweynaha masruuf aan ka dhiganoo mirta dhexe habeenkii midka xiga u xadinoo maskax caafimaadlo la malaysta shacabkiis marwooyinka mudnaanta leh meel sharaftood uga dhicin noo muuji eebbow muqadiska qur-aanka ah midaan magaca eebbaha midigtaana saarayn been muquuranaynoo masiibana horseedayn mooliskana yaqaanno midnimada ka doorbida musmuskiyo qabyaaladda noo muuji eebbow maalmahan adduunyadu muddo kooban inayiin mas-uul aanan moogayn mawdkiyo xanuunkiis naf kastiba maraysaa malaa'igta iilkee midna aanan dhaafayn murugadiyo ciilkiyo masiibada qiyaamaha midan mooganaynoo maankiisa laga tirin noo muuji eebbow kaasaan iyakana gabdhaha taageerada maansada aan ugu muujinayno oon dadkana leenahay war waxani wax soconaya maaha inay dumar uuni qeeliyaan uu raggiina halkaa uun xagga dambe joogsado xitaa ilma mijayaryarooyin ka sara kacatani u heeliya gabdhaha way dhantahay waxaan insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ducada aamin aan reer jibuuti aan walaalna ilaahay maqbulo wixii khayr lana aqbalo ninka farsamada gacanta farsamadan la wada waxaan jecel lahaa inaan hees yaro dhextaala oon ku nasanno uu noo saaro haddayna maqlayaan